shan injineer oo u dhashay dalka Ruushka oo ka mid ahayd quburada nuclear-ka ayaa lagu aasay Sarov oo ah magaalo u dhow Moscow. Waa meesha lagu sameeyo qaybta sare ee madaafiicda nuclear-ka. Hay'adda qaranka ee Ruushka u qaabilsan nuclear-ka Rosatom ayaa waxa ay sheegtay in quburada ay tijaabinayeen matoor laga sameeyay nuclear, balse ma aysan bixin faahfaahin dheer oo la xiriirta dhanka farsamada. Ruushka waxa uu horey u tijaabiyey gujis ku shaqeeya tamarta nuclear-ka oo loo yaqaano Burevestnik, laakiin saraakiisha Ruushka ma aysan caddayn hanaanka dhabta ah ee qaybta ka ahaa tijaabadii musiibada isu beddeshay. Qaraxa waxaa ka dhashay shucaac halis ah oo hawada ku jiray muddo 30 daqiiqo ah, kaasoo cabsi geliyey magaalada Severod oo 40 kiiloomitir u jirta heerka tijaabada la sameeyey, waxayna saaran tahay badda cad. 3 injineer oo kale ayaa qaraxa ku dhaawacmay, waxaana hadda lagu daweynayaa cisbitaal sida ay sheegtay hay'adda Rosatom. Quburada ku sugan Ruushka iyo dalalka reer galbeedka waxa ay sheegayaan in tijaabada ay noqon karto gantaalka Ma 730 Burevestnik oo ah mid ku duuli kara biyaha badda hoostooda. Madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa madfacaas kaga hadlay khudbadiisii baarlamaanka ee bishii Maaj sanadkii 2018. naatana waxa ay siisay magaca ah SSC-X-9 Skyfall. Mark Galotti oo ah falanqeeye iyo cilmi-baare sare oo ka tirsan macadka Royal United Service Institute Ruusi waxa uu sheegay in fidinta nuclear-ka ay keenayso caqabad weyn oo dhanka farsamada ah. Waxaa kaloo jira xawaare iyo xajmi iska soo horjeeda iyo halista shucaaca xawaare sare ku socda oo daali kara meel kasta oo uu gaaro. hanaankan cusubna waxa uu asal ahaan ka yimid xilligii midowda Sofiyeeti. birihii daxalaystay ayaa lasoo qaatay, dib ayaana loo maalgeliyey. sida uu sheegay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin, gantaalka meesha uu gaarayo ma xadidna, balse qaraxa wuxuu noqon karaa hub kale oo awood u leh qaadida madaxyada nuclear-ka. madfaca riddo dheer oo maraakiibta lagu rido oo loogu yeero Zircon waxa uu 8 jibaar xawaarihiisu ka dheereeyaa guuxa, sida militariga Ruushka laga soo xigtay. diyaarad duuliye la'aan ah oo meelo fog oo biyaha badda hoostooda ah gaari karta. 5 injineer ee geeriyootay ayaa ahaa khubaro hoggaan ah iyo geesiyaal, kuwaasoo ka warhayay halista. waxa ay horey u sameeyeen tijaabooyin si xad dhaaf halis u ahaa, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Rosatom oo lagu magacaabo Valentina Kostyukov. waxa uu madax ka yahay xarunta nuclear-ka ee Sarov, meel sir ahayd xilligii dagaalkii qabooba, halka oo laga maamulayay hubka ka samaysan hydrogen-ka ee Ruushka. markii hore wasaaradda difaaca ee dalka Russia ayaa sheegtay in qaraxa uu ka dhashay matoor madfaca oo dareere ku shaqeeya. tirada dhimashadana waxa ay ku sheegeen 2 qof. kadib Rosatom ayaa sheegtay in tijaabadu ay ahayd isha gelidda shucaacyo isu dhigma oo lagu fuliyey meel gudaha badda ah. injineeradu way dhameeyeen tijaabada, balse si lama filaan ah ayuu dab uga kacay matoorka uuna qarxay, waxayna ragga ku dhaceen badda sida saraakiisha Rosatom ay sheegeen. waxaa jira warar la isla dhexmaraya oo la xiriira in markabka la geeyey goobta si uu uga hortago shucaac kasta oo ka dhasha haraaga haddii fashil uu dhaco. waxaana hadda muuqata in ay suuragal tahay in hawshaasi uu qabtay oo keliya, balse waxaa dhici karta in meesha ay xireen ay ula jeedeen ka hortaga sun kasta oo soo baxsata ee biyaha gasha, halkaas oo dadka deegaanka ay ka kalluumaystaan. Mark Galotti oo ka tirsan macadka Ruusi ayaa yidhi waxaa jira shaki badan oo ah haddii Burevestnik uu mar uun arki doono iftiinka maalinta. wuxuu qiray in gantaal kale oo Ruushka muhiim u ah oo lagu magacaabo Bulava uu soo maray tijaabo sanado badan oo fashilantay. madaafiicda Zircon iyo Poseidon waa mashaariic aad u horumarsan. gantaalka Poseidon-ka ee biyaha hoostooda ku duula waa tusaale weli, balse Poseidon si la mid ah Burevestnik wuxuu u muuqdaa in uu yahay burburiye weyn. Mr. Galotti ayaa sidaasi sheegay, waana arrin aan macquul ahayn wax kastoo yar oo la xiriira dagaalka nuclear-ka.
wargeyska dowladda ruushka ee lagu magacaabo Rossiyskaya Gazeta ayaa bishii lasoo dhaafay qoray warbixin uu madfaca ugu tilmaamay hubka aargudashada. taasi waa oraah ay Naaziga ugu yeeri jireen hubkii ay UK ku garaaceen dagaalkii labaad ee adduunka. wargeyska ayaa lagu qoray in Burevestnik uu awoodo duulimaad dheer, wuxuuna ka baxsan karaa qalabka difaaca hawada. waxaa lagu garaaci karaa horumar kastoo muhiim ah kadib gantaalkii ruushka ee caaga ahaa ee qaaradaha isaga gudba ee horay u gaaray dhulka cadowga.